inaan ka soo qayb galo gunaanadka Hargeysa International Fair oo caawa halkan lagu soo gunaanadayo inkastoo kulanku igu haa kadis waxaan jecelahay anigoo raacaya mawduuca sanadkan ee carwada caalamiga ee Hargeysa inaan erayo kooban ka idhaahdo hogaaminta waxaan jecelahay inaan soo qaato gabay ka mid ah gabayadii ama suugaantii Hadraawi marka nin himilada hilan toosan mariyo hir markay la gaadhaba ku labaad higaasho hagamaatidiisu la higsada dhashaaba hooyo lagu xasuusta cilmi badan baa laga diyaariyay hogaaminta laakiin marka la qeexayo waxa laga yaabaa in boqolaal si oo loo qeexo hogaaminta laakiin ta ugu gaaban soo qaadanaya waxa weeye leadership is the capacity to translate vision into reality oo macnaheedu tahay hogaamintu waxa weeye in loo turjumo aragtida dhab ama xaqiiq waxaan aaminsanahay in maanta aynu soo saari karno hogaamiyeyaasha maanta iyo berriba talada ummadan qaban lahaa hogaaminta ugu wanaagsan markii la baadhay dhammaan cilmiyadu waxay isku raaceen in Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ahaa hogaamiyihii dunida ugu wanaagsanaa oo aynu raacno raadkiisa waxa ka mid ahaa in hogaamintiisa uu raggiisii dhammaan ka dhigay hogaamiyeyaal dunidan hantiyey iyadoo si gaar ah aan u xusayo in hogaamintu ku aaminay dhalinyaro daaya taas ayaa ku dayan doonaa insha Allah oo aynu hogaaminta tusaale uga qaadan doonaa waxaan jecelahay inaan kelimad kooban ka idhaahdo akhriska iyo qoraalka taana waxaan ku soo koobayaa tuduc Maxamed Ibrahim warsame lahaa inta maanku gaajaysan yahay guuri waa weli inaynu ummadna ka saarno jahliga una kaxayno nuurka cilmiga waxa horseed ka ahaa akhriska iyo qoraalka dhammaantiin waa mahadsantihiin cawaysi wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh